ciidamada Somaliland ayaa xabsiga waxay dhigeen wariye Cabdimaalig Sheekh Muuse Coldoon. Wariyaheena Ilyas Cali ayaa ka wareysanay arinta xiritaanka wariye Cabdimaalig Coldoon. والله سنتي على سحاب سيدا وشاقي تليها عيدمدا بوليسكا عبدالله فضل إيمان أو كل شاقي بركي في فيسبوك وحا حالي عبارة سقالكي يبركي عيدمدا بوليسكا سومالان أي حرين بو شاقي تليه وري عبدالمالك موسى coldoon oo jooga magaalada Burco gobolka Togdheer taliyo waxa uu sheegay in ciidamada booliiska Somaliland ay ku daba jireen taliyaantu Somaliland ku soo noqday Cabdimaalig Muuse Coldoon oo muddo 3 bilood ah dhuumaaleys ku joogay sida uu sheegay taliyo magaalada Burco marka wari Cabdimaalig Muuse Coldoon waxa uu hore uga caban jiray in ciidamada booliiska Togdheer ay isla markaana waaran looga soo gooyay maxkamadda Hargeysa lagu soo qabanayo sidaasina lagu xirayo marka xariga Coldoon calaw arimahaasi ayuu la xiriiraa waxyaabaha lagu xiray ilaa iyo hadda loo ogayna waxa kamid ah sida wariyahaasi ku soo qori jiray barihiisa bulshada in madaxweynaha Somaliland iyo sidoo kale qaybo kamid ah maamulku ay diideen qoraallo ama waxyaabo uu ka hadlo inta badan Cabdimaalig Muuse Coldoon oo baraha bulshada kaga hadlo ururka u dooda suxufiyiinta Somaliland ilaa ay hadda ma ka hadleen xariga wariye Coldoon in badan ayaa lagu xiray Cabdimaalig Muuse Coldoon cali oo deegaanada Somaliland ururka suxufiyiinta Somaliland marna kama hadleen xarigaasi loo geystay Cabdimaalig Muuse Coldoon ururku waxa uu sheegay in uu ka talaabay Cabdimaalig Muuse Coldoon mar hore wari gudoomiyaha la wareystay Maxamed Cabdi Jaamac Xuuto ninkaas gudoomiyaha ka ururka suxufiyiinta Somaliland waxa uu sheegay Cabdimaalig in xuduudka Somaliland uu ka talaabay isla markaana waxyaabo qarannimada Somaliland ka soo horjeeda uu ku kaco inta badan falalkaasi awgeedna aanay ahayn in saxaafadda laga hadlo balse hadii lagu xiri lahaa wax saxaafadda la xidhna ama hawl maalmeedkiisa shaqo ay ka hadli lahaayeen marka ururku markii horena kama hadal ilaa iyo hadana war kama soo saarin xarigan xalay ugu dambeeyay lagula kacay wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon taliska booliisku Somaliland ma sheegeen waqtiga maxkamad la horgeynayo wariye Coldoon inkastoo dastuurka Somaliland uu dhigayo in muddo 48 saacadood maxkamadda lagu horgeeyo eedeysanaha dambiga loo haysto ama ciidamada booliisku ay eedeynayaan haddana ilaa iyo hadda lama sheegin waqtiga rasmiga ee la geyn doono wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon maxkamad marar badan waxa uu ku jiray waqti aad u dheer salgida Somaliland markii dambana waxa iska sii daayay madaxtooyada inkastoo sanadkii hore lagu xukumay muddo 3 sano waxa si caafi si fadiyay madaxweynihii hore Somaliland Mudane Axmed Maxamed Xasan Silaayo markii lagu helay falal qaran dibisnimada sida ay maxkamadda gobolka Maroodijeex maalintaasi hore Cabdimaalig Muuse Coldoon ku xukuntay